الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسigeennan wuxuu ku saabsan yahay qiimaha 10 bisha Ramadaan u dambeeya oo inagu soo foolle oo habeen iyo maalin ay naga xigaan. bisha Ramadaan waa bil Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyay. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala dadka muslimiinta uu fududeeyay una yasiray khayr fara badan oo adduunyadan ay kala tagaan oo ay ka dhigtaan sahay aakhiro. wa shahrun mubaarak waanay muuqataa taasi oo dadka muslimiinta ahi marka bishan ay usoo gasho waxaa farabataa qaabilitaanka ay khayrka qaabilaan iyo dadaalka ay ku dadaalaan camalada wanaagsan iyo toobadkeenka in fara badan oo ka mid ah ay ka toobad keenaan xumaano iyo dembiye ay samayn jireen. bisha Ramadaan waxa u barako badan 10ka u dambeeya gaar ahaan habeenada. oo 10kaasi waxa ku jira habeenka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu tilmaamay inuu yahay habeen mubaarak, habeen khayrkiisa Ilaahay u badiyay, khayr fara badanna sabab u noqda. ilaahay maruu quraanka ka warramay wuxuu yiri inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka. quraanka waxaanu soo dejinay habeen khayr badan iyo barako fara badanna sabab u noqda. waa laylatul qadriga. 10ka bisha Ramadaan u dambeeya nabiyuna Muhammad alayhi salatu wasalaam isagoo guud ahaanba khayrka ku dadaali jiray, gaar ahaanna bisha Ramadaan aad u dadaali jiray. 10ka Ramadaan u dambeeyana rasuulku alayhi salaatu wasalaam dadaalka waa sii kordhin jiray. Caaisha waxay tiri radiyallahu anha kana nabiyyu alayhi salaatu wasalaam yajtahidu fi Ramadaan ma la yajtahidu fi ghayrihi. rasuulku wuxuu u dadaali jiray Ramadaan oo khayrka iyo wanaaga iyo acmaasha wanaagsan uu ugu dadaali jiray si ka badan siduu ugu dadaali jiray waqtiyada kale Ramadaan aan ahayn. ana kana yazdaadu nabiyyu alayhi salaatu wasalaam khayran wajtihadan ala al-a'mal as-salih. khayr buu kororsan jiray iyo dadaal uu ku dadaalo camalada wanaagsan. ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فيما سواه. 10ka Ramadaan u dambeeyana rasuulku wuxuu u dadaali jiray si ka badan siduu u dadaali jiray Ramadaan inteeda kale. waxay noo muujisay radiyallahu anha dadaalkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam 10ka dambe. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. نبي عليه الصلاة والسلام 10ka Ramadaan dambe markay soo galaan guntiga ayuu adkaysan jiray, dadaal buu muujin jiray. waxyaabaha mashquulin kara ee dumarku ay ka mid yihiinna waa ka dheeraan jiray. habeenka 10ka Ramadaan habeen kastoo ka midana cibaado ku nooleyn jiray, salaad, quraan oo akhriyo, dhikri, ducaya bariyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bariyo. وأيقظ أهله رسولك عليه الصلاة والسلام reerkii sana waa toosin jiray oo salaatu leylka ayuu toosin jiray. waxa muuqda nabigu alayhi salaatu wasalaam 10ka dambe inaanu seexan jirin, laakiin dumarka uma diidi jirin inay seexdaan, waa seexan jireen dumarkiisu, laakiin salaatu leylka ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam u kicin jiray 10ka Ramadaan dambe. nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo naasix amiina la taliyo fiican wuxuu umadiisa ku booriyay oo ku dhiirigeliyay 10ka bisha Ramadaan u dambeeya inay dadaalka khayrka kordhiyaan
taxaruu laylat alqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan habeenka laylatulqadriga ee qiimaha badan waxaad ka raadisaan oo aad ka baadhaan tobanka dambe ee ramadaan buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay habeenada witriga ee tiradoodu kala dhiman tahay in laga raadiyo tobankan waxaa qiimo gaara u yeelay inuu ku jiro habeenkaa qiimaha badan ee barakaysan ilaahay subxaana watacaala oo kitaabkiisa ku sheegay inuu qur-aanka soo dejiyey inaa anzalnaahu fi leylati اlqadr wma adraaka ma leylat اlqadr leylat اlqadri khayru min alfi shahr tanazl اlmalaa'ikaةu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amri salaamu hiya xataa maطlac اlfajr ilahay wuxuu tilmaamay kitaabkan qur-aanka inuu soo dejiyey leylat اlqadri kutubtii horena sida uu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam laftoodu bisha ramadaan ayay soo degi jireen kitaabka qur-aanka ka horeysa oo wakhtigaa qiimaha badan ee barakaysan buu ilaahay subxaana wa tacaala la eegan jiray soo dejinta uu ku soo dejinayo waxyiga rusushiisa iyo ambiyadiisa ilaahay subxaana wa tacaala leylat lqadriga arrinkiisa waa weyneeyey wamaa adraaka maa leylat lqadr maxaa ku ogeysiiyey leylat lqadrigu wuxuu yahay macnaa waa leylat cadiimat shariifa daatu qadrin cinda allahi subxana wa tacaala waa habeen aada u weyn oo sharaf badan oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa qadar iyo qiimaba ku leh waxyaabaha habeenkaa dhaca wax ka mid a ayuu ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamay tanazalu lmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha habeenkaa waxaa soo dega weliba aada u soo dega oo iska daba yimaada malaa'igta waxaa kaloo soo dega malaku jibriil isagoo malaa'igta ka mid a haddana ilaahay subxaana wa tacaala gooni ayuu xusay lisharafihi wa qadrihi cinda allahi subxana wa tacaala sharaftiiyo qadarka dheeraadka ah ilaahay agtiisa uu ku leeyahay awgeed buu ilaahay subxana wa tacaala gooni u xusay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay habeen ay malaa'igtu dhulka kaga badan tahay habeenkaa leylatulqadriga inaanu jirin ilahay wuxuu tilmaamay habeenkaasi inuu yahay salaam dad badan ilaahay cadaabkiisa ay ka nabadgelayaan ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naarka xoreyntiisa iyo naxariistiisana ay ku guuleysanayaan leylatulqadriga waxaa loo badinayaa tobanka dambe ramadaan gaar ahaan habeenada tiroodu ay kala dhiman tahay waxaase dhici karta habeenaan tobanka dambeba ka mid ahayn in uu ka mid noqdo uu ku jiro walihaada bay odhan jireen saxaabada qaarkood man yaqum idahra yalqa leylat alqadr qofka sanadka oo dhan salaatuleyl u kacaa leylatulqadriga uu la kulmi doonaa ramadaan inuu ku jiro ayaa labada aayadood marka la ysu geeyo aayat lbaqara iyo aayadda suuratu alqadri ku jirta ayaa muuqata ilahay wuxuu tilmaamay qur-aanka inuu soo dejiyey bil ramadaan shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan aayaddaasina kalena waxay tilmaantay in leylatulqadri la soo dejiyey inaa anzalnaahu fi leylati lqadr marka leylatulqadriga horta ramadaanu daa laakiin ramadaan habeenada tobankaa habeenaan ahayn waa noqon karaa habeenada habeen ka mida buu noqon karaa tiradiisu kala dhimantay habeen tiradiisu buuxdana waa noqon karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iltamisuu leylata alqadri fii aakhiri leylati min ramadaan leylatulqadriga waxaad ka raadisaan habeenka u dambeeya ee bisha ramadaan ka mid a haddii 30 ay ku dhammaato ramadaan habeenkaasi wuxuu noqonayaa habeen tiradiisu ay buuxdo marka arrin maqtuuc oo go-an maaha in leylatulqadrigu uu 10ka dambe uun ku jiro waa loogu rajo weyn yahay in habeenada tiradoodu kala dhiman tahay uu ku jiraana arrin la hubo oo si go-an loo sheegi kara maaha laakiin waa loogu rajo badan yahay habeen aan witri ahayn tiradiisu ay kala dhiman tahay ayuu noqon karaa waxyaaba u muhiimsan ay tahay qofka muslimkaahi habeenadaasi inuu ku dadaalo
waxaa ka mida alqiyaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatuleylka ramadaantii la tukanayo ama xagga hore ha laga tukado ama dhexda ama xagga dambe ee habeenkii wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in addoonka loogu dembi dhaafo qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi qofka habeenada ramadaan salaatuleyl u kaca isagoo oo rumaysan isla markaana ilaahay daraaddii arrinkaa u samaynaya oo ilaahay un wax kaga doonaya dembigiisii horaa la dhaafa leylatulqadrigana si gaaru u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu uhi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi qofka leylatulqadriga salaatuleyl tukada iimaanan rumaysnaan awgeed u tukada iyo ixtisaaban isagoo ilaahay wax kaga doonaya dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo sideedaba salaatuleylku ay tahay salaadaha aan faralka ahayn ee sunnaha ah salaada u fadliga badan oo afdalu salaati bacda almaktuuba wa salaatu leyl salaadaha faralkaa dabadood salaada u fadliga badani waa salaatuleylka weeyi ayaa haddana bisha ramadaan gaar ahaan 10ka dambe ayaa fadligeedu uu sii kordhaya qofku waa inuu salaadaasi uu ku dadaalo faral maaha in jamaaco lagu tukado ama masaajid lala yimaado gurigiisa ayuu qofku iskaga tukan karaa isaga iyo ehelkiisa iyo inta guriga ku wada nool ayaa salaadaa wada tukan kara waxaa kaloo mudan in lagu dadaalo ducada weliba ducada uu sida gaarkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha u baray markay tidhi haddaan ogaadoon calaamadaha ku garto habeenka leylatulqadriga maxaan idhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaah waxaa tahay mid dhaafista addoomihiisa khaladka iyo dembiga ay galaan u dhaafaa ay fara badan tahay cafiskana ilaah waad jecesha walihaada baa ilaahay subxana watacaala addoomihiisa u cafiyaa addoomihiisana uu ugu baaqay inay iscafiyaan si iyaguna cafiska ilaahay u helaan facfuu wasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waa ilaahay wuxuu kusoo dejiyey abu bakr markii inantiisii caaisha been abuurka laga sameeyey ninkii mistax la odhan jiray faqiirka ahaa ee hawshaa dhex galay qaraabada ay ahaayeene uu masruufi jiray uu masruufkii ka joojiyey ayaa ilaahay wuxuu yidhi ka jeestaan cidda ku khaldantay hana cafiyaan maydaan idinkuba jeclayn ilaahay subxana watacaala inuu idin dembi dhaafo faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah cafiska ilaahay waa jecel yahay addoomihiisana wuxuu ugu baaqay uu ku dhiirigeliyey ciddii khalad iyo gefka gashaa inay cafiyaan facfu canii tuxibu alcafwa facfu canii ilahu cafiskaad jeceshahay ilaahay u icafi khaladkiiyo gefka aan galo ilahu ha igu qabanin oo adduun iyo aakhiro midnaba ciqaabkiisa ha igu tusin ilaahay u ii dhaaf sidaasoo kale acmaasha saalixa ah ee sadaqadu ay ka mid tahay waa in la farabadiyo 10ka dambe ee bisha ramadaan ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu inoo fududo inaga aqbalo ilaahayna subxaana watacaala raxmadiisa iyo barakaadkiisa iyo dembi dhaafkiisa bishan khayrka badan haynagu arsaaqo oo kuwa naarta uu ka xoreeyo rabbi subxaana watacaala haynagu daro